السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal. In la rabaayadeeyo xayawaanaadka duurjoogta ah, gaar ahaan kuwa halista ah ee wax ugaarsada ma ahan mid fudud. Balse dadka qaar ayay u suurta gashay inay rabaayadeeyaan oo ay guryahooda ku haystaan. Waxayna inta badan uga faa'iideysteen xilligii ay yaryaraayeen, maadaama ay fududahay in la layliyo xayawaanaadka inta ay yaryar yihiin. Muuqaalkan waxaynu ku soo qaadanaynaa 6 xayawaan oo halis ah, kuwaasi oo la rabaayadeeyay isla markaana laga dhigay guri joog. Lambar 1 Cayman. Caymanku waa nooc ka mid ah yaxaaska, waana xayawaan halis ah. Ninkan Jabaaniiska ah oo lagu magacaabo Borobashi wuxuu ku nool yahay magaalada Hiroshima ee dalka Japan. Wuxuu gurigiisa ku haystaa yaxaaskan halista ah. Yaxaaskan ayaa dhererkiisu gaaraya 2 mitir iyo 10 sentimitir, culayskiisuna waa 46 kilogram. Sanadkii 1982 ayuu Borobashi ka soo iibsaday yaxaaskan goob lagu iibiyo xayawaanaadka duurjoogta ah. Laga soo bilaabo xilligaasina waxa ay noqdeen saaxiibo aan kala tegin, iyadoo ay jirto in badanaa xamaaratada aysan da'doodu dhaafin 30 sano. Haddana Borobashi iyo yaxaaskiisu waxa ay wada joogaan muddo 40 sano ah. Lambar 2 Misi. Misi waa libaax buureed. Waxaa soo badbaadiyay Alexander iyo Merve Dimitri oo u dhashay dalka Ruushka. Waxayna keeneen gurigooda wayna daaweeyeen. Xilliga ay soo badbaadinayeen wuxuu libaaxani jiray 3 bilood oo kaliya. Maalin kasta 2 jeer ayaa damaashaad loo wadaa, wuxuuna cunaa hilib aad u badan, wuxuuna hadda ka mid yahay qoyska. Wuxuuna yaqaanaa isla markaana ka jawaabi karaa ilaa iyo 10 amar kuwaasi oo lagu tababaray. Lambar 3 Jeerta. 11 Maarso sanadii 2002 xilligaasi oo ay daadad xoog leh ku dhufteen dalka Koonfur Afrika, waxay Tony iyo Shirley Ferdi soo badbaadiyeen jeer aad u yar, taasi oo culayskeedu ahaa 16 kilogram. Jeertan oo lagu magacaabo Jessica ayaa aad u tabar yarayd, mana aysan awoodin inay ka istaagto biyaha, waxayna u muuqatay mid xilligaasi dhalatay. Labada nin ayaa aad ugu dadaalay inay koriyaan jeertan, wuxuuna hadda miisaankeedu gaarayaa 700 oo kilogram. Lambar 4 Dubka. Xilli laga joogo 23 sano waxay Stiblana iyo Yori Badlingo u istaageen inay korsadaan dub aad u yar, kaasi oo gaarayay 3 bilood. Dubkan ayaa ahaa hooyo la'aan, waxaana hooyadii ugaarsi ku dilay nin ugaarsada ah. Waxayna u kaxaysteen guriga, waxayna u daryeeleen sidii cunug ay dhaleen oo kale. Sanado kadib wuxuu dubka noqday mid weyn, wuxuuna culayskiisu gaarayaa 150 kilogram. wuxuuna maalin kasta cunaa 25 kilogram oo isugu jirta kalluun, khudaar iyo ukun. Dubkan waxaa lagu magacaabaa Siban, wuxuuna caan ka noqday baraha bulshada, wuxuuna ka soo muuqday filimaanta qaar. Lambar 5 Geriga. Dalka Koonfur Afrika xilli laga joogo 10 sano ayay qoyskan oo safar ah waxay wadada dhinaceeda ku arkeen geri aad u yar, taasi oo dhererkeedu gaarayay mitir iyo bar. Gerigan ayaa si xun loogu tuuray wadada dhinaceeda, waxaana dusheeda ku degdegayay cayayaanka. Waxayna u muuqatay mid hooyadeed ka tagtay, balse 6 ka mid ah qoyska ayaa isla soo qaaday, waxayna soo saareen gaarigooda. Intaa kadibna waxa ay geeyeen beer ay lahaayeen, wayna koriyeen, waxayna ugu magac dareen Veni. Lambar 6 Dhurwaaga ama waraabaha. Kadib markii sawirkan lagu faafiyay baraha bulshada, wuxuu soo jiitay indhaha caalamka. Waa koox Nigerian ah oo soo qabatay dhurwaaga oo nool, isla markaana rabaayadeeya. Dhurwaayadan ayay ku haystaan guryahooda, waxayna siiyaan hilib aad u badan. Inkastoo la sheego in waraabuhu uu yahay xayawaan aan rabaayad noqon, haddana kooxda Nigerianka ah waxay maalin walba u adeegsadaan inay ku ciyaarsiiyaan dadka, iyagoo keena wadooyinka waaweyn ee Abuja. Muuqaalkeeni maanta inta ayuu ku egyahay. Fadlan haddii aad dhamaysatay share gare oo la wadaag asxaabtaada, ku soo biir oo subscribe saaro channelka Kobcis. Inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga, sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.